goortu waa 7 bishii 10aad sanadka 2023 maalin Sabti ah saacaduna ay ku beegan tahay 6 subaxnimo ayaa laga warhelay gantaalo diyaarado drones ah iyo ciidamo baarashuudyo macmal ah wato ay gudaha u galeen deegaanada uu guumeysto gacanta ku hayo. Waxaynu u jeednaa dagaalka loogu magac daray duufaantii Al-Aqsa ee haatan ka socda marinka Gaza. Kusoo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta aynu ku eegi doono sida ciidanka guumeystaha loogu baabi'iyay marinka Gaza iyo muqaawamada Falastiiniyiinta xeeladaha ay isticmaaleen. haddii aad horey noola joogtay fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna fadlan nagu soo bir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Mahadsanidin. Muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa dagaalkoodii ku sheegay inuu sabab u yahay guumeystaha dhibaatada uu ku hayo Masjidul Aqsa ee dadka ku cibaadaysanayo. Abaara 6 subaxnimo maalin Sabti ah sida caadiga ah guumeystuhu maalinka Sabtidu waa maalin cibaado iyagoo iska cibaadaysanayo oo iska baashaalayo ayaa hal mar waxa ooda looga qaaday 5,000 oo gantaal iyo diyaarado drones ah ay soo tuureen muqaawamada Falastiiniyiinta. Haddii aynu yar milicsano sida aad u jeedid muuqaalkani waxaa ka dhacay meeshaas kala carar meel loo socdo aan la garanaynin. Ciidanka guumeystaha waxaa ku dhacay jahwareer ay la garan waayeen meesha laga soo weeraray iyo halka ay u socdaan. Sida aynu ku eegi doono muuqaalkeena dhexdiisa qaabka uu bilowday dagaalka iyo sidoo haatan marayo. Sida caadiga ah dowladaha burcada iyo jabhadaha hubeysan waxa ay ku qasban yihiin mar walba ay dagaal galayaan oo inay si qiyaasaan dagaalkani inta khasaaro ka soo gaari karta iyo khasaaraha iyagoo ay geysan karaan. Sidaas daraadeed waxaa la dhihi karaa maanta dagaalkani maanta ka socda marinka Gaza muqaawamada Falastiiniyiinta cabaar ayay soo fikireen oo sanadooyin badan ayay ku soo qaadatay inay qaadaan weerarkan maanta la arkayo. 7 bishii 10aad sanadka 2023 abaara 6 subaxnimo muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa soo daayay ku dhawaad 5,000 oo gantaal iyo diyaarado drones ah si ay qalqal u geliyaan nidaam difaaceedka guumeystaha. Gantaaladii ay soo tuureen waxa ay geysteen burbur baaxad leh oo gaaray guumeystaha Israa'iil. Waxaa xigay ciidamo loo soo diray dhanka xadka ay wadaagaan guumeystaha iyo Falastiiniyiinta iyagoo burburinaya darbiyada uu guumeystuhu meesha uu ku dhisay. Darbigii weynaa ayay ka soo gudbeen. waxaana xigay ciidan loogu magac daray Falcon. Guutooyinka Falcon ayaa waxay ku duulaan baarashuudyo macmal ah sidaad ka arki kartid muuqaalka. Waxa ay gudaha u galeen deegaanada uu guumeystuhu xooga ku dejiyay marinka Gaza agagaarkiisa. Ilaa 13 degmo ay gudaha u galeen. Waxay laayeen ciidanka guumeystaha meeshaas ku sugnaa waxayna geysteen burbur baaxad leh ayna u geysteen guumeystaha. Kadib waxaa xigay ciidamo wata mootooyin iyo gaariyaal ay gudaha u soo galeen deegaanadii ay ciidankii muqaawamada ay mar hore gudaha u soo galeen. Kadib waxa ay qabteen ciidamo iyo saraakiil shacab ay afduubteen waxayna u kaxayeen marinka Gaza sifo ay u soo daayaan dadkooda kaga xiran saldhigyada guumeystaha. Sawirkani aad u jeedid waa sarkaal ka mid ah saraakiisha guumeystaha oo lagu qabtay dagaalkii 7 Oktoobar dhacay. Magaciisa waxaa la yiraahdaa Namriid Calluuni. Waxaa kaloo la qabtay saraakiil badan oo isaga la mid ah iyo ciidamo iyo dad shacab ah oo ay afduubteen muqaawamada Falastiiniyiinta. Dagaalkani wuxuu shucuubta caalamka u soo xasuusiyay in weli ay jirto qadiyadda Falastiin. Muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa ka dhex dagaalamayay guumeystaha dhexdooda ku dhawaad 48 saacadood oo xiriir ah ilaa markii dambe guumeystaha uu soo kiciyay diyaaradihiisa dagaalka uuna baabi'iyay meel walba ay ku sugan yihiin iyo magaalooyin badan oo ka mid ah dhulkiisa ilaa uu dilay dadyow fara badan oo ka tirsan shacabka guumeystaha. Laakiin muqaawamada Falastiiniyiinta waxay ku guuleysteen inay soo qabsadaan in badan oo maxaabiis ah si ay uga gorgortamaan dagaalka ay geli doonaan ayna ugu soo furtaan maxaabiistooda. Taariikhdu markay ahayd 27 bishii 10aad ciidanka guumeystaha waxa ay go'aansadeen inay weerar ku qaadaan marinka Gaza. Weerar dhinaca dhulka ah ay la galaan muqaawamada Falastiiniyiinta
si ay u soo baabi'iyaan muqaawamada Falastiiniyiinta ayna u soo furtaan maxaabiistii laga afduubtay. Markii ay soo galeen marinka Khaza, waxa ay ka soo galeen dhinaca Beit Xanuun iyo Beit Laahiya, laakiin meeshaas waxaa loogu dhigay cashar aysan iloobi doonin ciidanka gumaystaha. Iyagoo iska socda ayaa hal mar gadaal inta lagu soo baxo ayaa hore iyo gadaal hal mar laga tooganayay. Markaas waxa ay garan waayeen meesha laga soo weeraray iyo dadkii soo weeraray meesha ay aadeen. Inkastoo ciidanka gumaystaha iyo muqaawamadu aysan ahayn isku awood, haddana muqaawamada Falastiiniyiinta waxay adeegsanayeen tactikada ku dhufo oo ka dhaqaaq. Halkaas ayay ku weerareen ciidanka gumaystaha iyagoo looma tababarin dagaalka dhinaca xaafadaha, balse muqaawamada Falastiiniyiinta dhulkaasi waa ay ku dhasheen, waa ayna ku soo barbaareen, si fiican bay u yaqaanaan. Haddana magaalooyinkaasiita waa magaalooyin isku raran. Ciidanka gumaystuhu ma kala aqoonsan karaan meeshii hadda laga soo baxay iyo meeshii ay ku dhuunteen dadkii. Hadda dagaalka ka socda marinka Khaza waxaa caan ku soo noqday gantaalka loo yaqaano Al-Yaasiin 105 oo baabi'iyay taangiyadii gumaystaha oo lagu magacaabo Markiva. Waxaa kaleeto dagaalka caan ku soo noqday qoriga loo yaqaano Al-Ghuul ee ay muqaawamada Falastiiniyiintu gacantooda ku samaysteen, kaas oo loogu talagalay in ay ku togtaan saraakiisha hogaaminaya guutooyinka iyo ciidanka kuwooda ugu muhiimsan, kuwaas oo la bartilmaameedsanayo mar walba. Ciidankuna waxay ka qaadi doonaan niyad jab ilaa heer ay gaaraan inay ka cararaan dagaalka. Sidaas daraaddeed, waxaa kaleeto dagaalka caan ku soo noqday miinada loo yaqaano Shabaad, miinadaas oo muqaawamada Falastiiniyiintu ay ciidanka gumaystaha dhulka ugu aasaan. Miinadaas oo burburisa taangiyada iyo gaariyada gaashaaman iyo kuwa ciidanka lagu daabulo. Mararka qaarna ciidanka waxaa loo geliyaa guryada ay markaas dhufeys ka dhigan rabaan, halka muqaawamada Falastiiniyiinta mar walba ciidanku ay ka soo weeraraan markii ay wadada ku jiraan gaariga ugu horeeya iyo gaariga ugu dambeeya si ay u jahweeraraan ciidanka meesha ay gurmadka u raadsan lahaayeen. Balse muqaawamadu mar walba dagaal ku dhufo ka dhaqaaq ah ayay kala hor yimaadeen ciidanka gumaystaha, taas oo ku qasabta inay meeshaas sida iskaga cararaan, qaarkoodna ay weeraraan, halka qaar markii lagu celiyo magaalooyinkooda ay bedilaan asxaabtooda, xaasaskooda iyo carruurtooda. Madaxda gumaystaha ayaa madaxa gacanta saartay markii ay arkaan mar walba muqaawamada Falastiiniyiinta muuqaalada ay soo bandhigaan iyagoo tooganayo ciidanka gumaystaha, iyagoo burburinayo taangiyada. Balse muqaawamada Falastiiniyiinta mar walba waxa ay soo bandhigaan muuqaalo lala yaabay oo ay gumaystuhu fajaca ku noqoto. Ciidanka gumaystaha ayaa baabi'iyay magaalada Khaza 90% guryihii ku yaalay. Waxa ay la dhaceen taangiyadooda iyo diyaaradaha dagaalka ee uu Mareykanku siiyay. Balse muqaawamada Falastiiniyiinta iyagoo waxaas oo dhan ku dhacayaan ayaa haddana waxay kala hortageen weerar, kaas oo aan filinaynin gumaystaha inuu kala kulmayo muqaawamada Falastiiniyiinta. Muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa ciidanka gumaystaha la galay dagaal abid aysan maleysanaynin inay la geli doonaan muqaawamada Falastiiniyiinta. Ciidanka gumaystaha waxaa soo gaaray jab isagoo kale uusan soo gaarin ku dhawaad 50 sano, halka madaxda gumaystaha ay madaxa gacanta saarteen ayna la yaabsan yihiin muqaawamada Falastiiniyiinta hubkan intan la eg meesha ay ka keeneen iyo sida ay u isticmaalayaan. Reer galbeedkii oo dhan ayaa hal mar waxay u istaageen garab istaagga gumaystaha, balse waxba uma tarin. Waxay ku soo daabuleen hub wixii ugu dambeeyay oo ay haysteen. Madaxdii muslimiinta waxaa ka soo haray hindho oo keliya, halka qaarkood waxyaabaha qaar ay cambaareeyaan, balse mar walba qadarta Alle subxaanahu wa tacaala ayaa dhacaysa. Alle subxaanahu wa tacaala ayaynu ugu baryaynaa walaalaheena Falastiin inuu u gargaaro uuna u soo celiyo cizdadii iyo sharaftii ay qabeen. Muuqaalkeena maanta halkaas ayuu ku egyahay. Fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Haddaad horey noola joogtayna muuqaalka like saar oo la wadaag asxaabtaada. Aad baad u mahadsantihiin. Intaynu ku kulmi doona muuqaalkan muuqaalkiisa kale waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.